السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي wanaagsan daawadayaal meel ka soo dunida nagala socotaan waa habeenimo isniin ah bisha January ay sii galayso 3 sanada 2022 qodobada aad barnaamijkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah ciidamada dawladda federaalka dalka Itoobiya oo qarka u saaran inay gudaha u galaan magaalada Makale kadib dagaal maanta dhacay. dagaalada ka socda gobolka lagu muransan yahay ee Humera oo sii xoogaysanaya iyo kooxda TPLF oo guulo sheeganaysa. dagaal culus oo maanta ka dhacay duleedka magaalada caasimadda u ah Puntland ee Garowe. wasiirka amniga Soomaaliya oo beesha caalamka u sharaxay go'aankii uu NISA kaga saaray garoonka caalamiga ah ee Aadan Cadde. faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya dagaal culus oo ka dhacay gudaha magaalada Beledweyne. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ee barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada. aan ku bilownay wararka naga soo gaadhaya dalka Itoobiya ayaa sheegaya in ciidamada federaalka dalkaasi Itoobiya ay qarka u saaran yihiin inay gudaha u galaan magaalada caasimadda u ah Tigrayga ee Makale kadib dagaal maanta ka dhacay duleedka magaaladaasi. ciidamada dawladda federaalka dalka Itoobiya ayaa la sheegay inay maanta ka soo ruqansadeen magaalada Abala oo baryahanba uu dagaal ku dhaxmarayay iyaga iyo ciidamada kooxda TPLF. waxaa la sheegay in maanta ciidamada TPLF ay dib uga soo ruqansadeen jiidii hore ay ku sugnaayeen isla markaana ay u soo dhawaadeen magaalada caasimadda u ah ee Makale. ciidamada dawladda ayaa haatan u muuqda in ay hareereeyeen magaalada Makale waxaana la soo tabinayaa inay u jiraan ciidamada dalkaasi Itoobiya wax ka yar 30 kiiloomitir magaalada Makale ee caasimadda Tigrayga. ciidamada dawladda dalkaasi Itoobiya ayaa baryahanba dagaal xoogan la galay kooxda TPLF iyadoo kooxdaasi TPLF ay difaac xoogan dhigatay meel aan ka dheerayn magaalada Abala oo baryahan la isku haystay. balse maanta waxaa la soo sheegayaa in ciidamada kooxda TPLF ay dib u gurasho ka sameeyeen dagaalka isla markaana ciidamada dawladda Itoobiya ay ruqaansi u soo sameeyeen dhinaca magaalada Makale. ma jiro wax war oo ka soo baxay kooxda TPLF oo ku aadan ruqaansiga ciidamada dawladdu ay u soo sameeyeen dhinaca magaalada ay difaaca xoogan ugu jireen ee Makale. balse kooxda TPLF ayaa u muuqatay in intaas ka badan ay difaaci kari weyday magaalada Makale isla markaana ay soo banaysay furintii ay ka difaacaysay magaaladaasi Makale. waxaana la filayaa in ciidamada dawladdu ay hata wixii ka dambeeya u fududaan doonto inay gudaha u galaan magaaladaasi iyadoo la soo tabinayo in dagaalka maanta ay ka qayb qaateen diyaaradaha duuliyaha lahayn ee dalkaasi Itoobiya isla markaana ay fududeeyeen in kooxda TPLF ay isaga baxdo difaacii ay kaga jirtay meeshaasi ku taala magaalada Abala. balse ciidamada dawladda dalkaasi Itoobiya ayaa u muuqda kuwo taxadar badan ka muujinaya galitaanka magaalada Makale. ciidamada dawladda Itoobiya ayay u noqonaysaa guul weyn haddii ay gudaha u galaan isla markaana ay si rasmi ah ula wareegaan magaalada Makale ee caasimadda gobolka Tigrayga. waxaanay kooxda TPLF ku noqonaysaa jabkii ugu weynaa ee soo gaadha taniya markii laga soo kaxeeyay duleedka magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa. dhinaca kale dagaalada u dhaxeeya maleeshiyada iska soo horjeeda ee ka kala tirsan qowmiyadaha Axmaarada iyo Tigrayga ayaa weli ku dagaalamaya galbeedka gobolka Tigrayga. gobolka lagu muransan yahay ee Humera oo baryahanba ay dagaalo ku dhaxmarayeen maleeshiyadaasi isku haya dhulbeereedkaas ayaa la soo tabinayaa in dagaalkoodu uu sii xoogaysanaya iyadoo maanta la soo sheegayo in halkaasi ciidamo fara badan oo dawladda federaalka dalka Itoobiya ay gaadheen halka kooxda TPLF ay ciidamo badan soo dhoobtay meeshaasi. waxaana la filayaa in halkaasi uu dagaal xoogan ku dhaxmari karayo dawladda iyo waliba kooxda TPLF. maleeshiyadan ka soo kala jeeda qowmiyadaha Axmaarada iyo Tigrayga ayaa la soo tabinayaa in halkaasi ay isaga dileen dad fara badan oo dagaalamayay iyo waliba qaar shacab ah oo guryahooda lagu gubay. sida la soo tabinayo halkaasi ayaa laga soo sheegayaa in xaalado bani'aadanimo oo darani ay ka jiraan isla markaana ay xasuuq ba'ani isku geysanayaan labadaasi qowmiyadood. dawladda federaalka dalka Itoobiya ayaa sheegtay in halkaasi ay ciidamo u dirayso si loo kala qaboojiyo dagaalka, balse kooxda TPLF oo u muuqata in dagaalka halkaasi ka socda ay dan ugu jirto ayaa rabta inay ciidanka dawladda ay dagaal kala hortagto. inkastoo kooxda TPLF ay gacanta ku hayso meesha lagu dagaalamayo ciidamada dawladduna ay rabaan inay si fudud ku gaadhaan halkaasi
ayaa lagu soo waramayaa in ciidamada TPLF-tu ay rabaan inay difaacdaan gobolkaasi isla markaana ay ka saaraan dadka degan ee Axmaarada ah. haatanna Puntland, wararka naga soo gaaraya magaalada caasimadda u ah Puntland ee Garowe ayaa sheegaya in duleedka magaaladaasi uu dagaal culus oo u dhexeeya laba maleeshiya beeleed uu ka bilowday maanta, waxaana halkaasi la soo sheegayaa inuu dagaalkaasi ku fiday deegaano horle. ila wareedyo ayaa sheegaya in dagaalka uu xoogiisu ka dhacayo tuulada Saaxmeygag, waxaana inta la xaqiijiyay ilaa iyo hadda ku dhimatay 6 qof iyadoo 15 kalena ay ku dhaawacmeen. dagaalka ayaa qarxay markii xal laga gaari waayay muran ka taagnaa nidaamka deegaamaynta tuulooyinka Saaxmeygag iyo weliba Sangajabiye oo dhaca xadka gobolka Sool iyo Nugaal. colaadda waxaa laga dareemay degmada Boocame oo ka tirsan gobolka Sool ee deegaanka Birta Dheer ee gobolka Nugaal, waxaana dagaalka ku barakacay qoysas fara badan iyadoo halkaasi ay ka taagan tahay abaar xooggan isla markaana laga soo tabinayo xaalado bini'aadanimo oo daran. ma jirto dhexdhexaadin laga dhex wado labada beelood ee muddada sanadka ku dagaalamayay deegaanka Saaxmeygag. sidoo kale mas'uuliyiinta Puntland kama aysan hadlin colaadda soo cusboonaatay iyo weliba dhibaatooyinka halkaasi ka taagan. dhinaca kale, wasiirka amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa qoraal uu u diray beesha caalamka uga hadlay go'aankiisii in ciidamada dharcadka ah ee NISA laga saaro gudaha madaarka Muqdisho oo ay ka howlgeli jireen. wasiirka ayaa amar shalay uu soo saaray ku sheegay in ciidamada NISA ee ka howlgala gudaha Aadan Cadde International Airport ay halkaasi ka baxaan. qoraalka wasiirku uu u diray beesha caalamka ayuu ku sheegay in ciidamadaasi ay khalkhal iyo weliba cagajuglayn ku hayeen siyaasiyiinta iyo shacabka kale ee ka dhoofaya madaarka. tallaabadan uu qaaday wasiirka amniga ayuu ku sheegay inay ka qayb tahay adkeynta ammaanka madaarka iyo weliba shacabka masaafuriinta ah. waxa uu carabka ku adkeeyay wasiirka amnigu in ciidamada NISA ee halkaasi ku sugnaa ay dhibaato xooggan ku hayeen shacabka iyo weliba siyaasiyiinta madaarka ka dhoofaya, waxaanu sheegay inay khalkhal amni abuurayeen. haatanna Beledweyne, warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal ka dhacay duleedka waqooyi ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, kaas oo wararka qaar ay sheegayaan in weli uu halkaasi ka soconayo. dagaalka ayaa u dhexeeya ciidanka maamulka Hirshabelle iyo weliba ciidamo uu wato sarkaal lagu magacaabo Nuur Dheere. wararka ayaa sidoo kale sheegaya in dagaalka uu yimid markii ciidamo ka tirsan Hirshabelle ay weerar ku qaadeen saldhig uu deegaanka Qawlad oo dhinaca waqooyi ka xiga Beledweyne uu ku leeyahay sarkaalka Nuur Dheere oo habeena ka hor dagaal looga saaray magaaladaasi. qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in dagaalka socda uu yahay mid xooggan isla markaana la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan. inkastoo aanay sheegi karin khasaaraha ka dhashay dagaalka, lama oga ilaa iyo hadda khasaaraha ka dhashay dagaalka u dhexeeya ciidanka Hirshabelle gaar ahaan kuwa ka howlgala Hiiraan iyo weliba ciidanka uu wato sarkaalka lagu magacaabo Nuur Dheere oo lagu eedeeyay inuu habeena ka hor ay weerareen kolonyo galbinaysay gudoomiyaha gobolka Hiiraan. dagaal labada dhinac ku dhex maray habeenkii Jimcaha magaalada Beledweyne ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, waxaana inta la xaqiijiyay dagaalkaasi ku dhintay 5 ruux iyo weliba dhaawacyo fara badan oo halkaasi ku soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamayay. dagaalka ka socda deegaanka Qawlad ee duleedka magaalada Beledweyne ayaa ku soo aadaya xilli shalay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan uu ku dhawaaqay howlgal ka dhan ah dadka ka soo horjeeda maamulka Hirshabelle ee ku sugan halkaasi. akhirta sharafta leh hawada nagala socoto, intaas waxaan kusoo koobaynaa guud ahaan wararkiina soo gaadhayay. intaan ku kulmayna warkan warka xiga waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ammaano Allah.